muddo badan waxaa hakad ku jiray doorashada guddoonka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxaana ay doorashadan dib u dhac samaysay marar badan waxaa jira musharaxiin u taagan guddoomiyaha xiriirka kuwaasi oo waday oo la doorasho waqtiyo badan waxaana uu hamigoodu ahaa inay noqdaan guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya laakiin waxaa mar qura soo baxay war aan u fiicnayn dhagaha tartamayaasha kadib markii beejka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya lagu daabacay in hal musharax oo kaliya uu u tartami karo guddoonka xiriirka guddiga rafcaanka iyo guddiga doorashada xiriirka waxay sheegeen in guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cali Shiine oo kaliya uu soo buuxiyay shuruudihii laakiin musharaxiinta kale aysan soo buuxin warka ka soo yeeray guddiga doorashada xiriirka kubadda cagta waxaa ka hadlay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga iyadoo wasaaraddu sheegtay inaan la aqbali karin doorasho hal dhinac ah lana qabto doorasho ay ku wada qanacsan yihiin musharaxiinta u tartamaysa guddoonka xiriirka waxaa ka dhashtay hal qodob kaloo saa'id ah oo soo laabtay waxay yahay qofta xiriirka footballka ma aan inuu 5 sano xiriir ka tirsan yahay waxa meesha ku qoran oo saan u dhahayn u qoran ugu yaraan 5 sano oo football experience ah inuu qofta leeyahay haddaba maxaa xal u ah khilaafkan taagan sidee ayaan lagu qaban karaa doorasho lagu wada qanacsan yahay